xogayaha dowladda hoose ee degmada Burco Cismaan Sheekh Cismaan Nuur iyo isduwaha wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga ee gobolka Togdheer ayaa maanta si rasmi ah xadhiga uga jaray meherad cusub oo hilibka xoolaha oo qaab casri ah loo diyaariyay iibin doonta taasoo loogu magac daray Burco Modern. ugu horeyn waxa munaasabadaasi ka hadlay Cabdideeq Maxamuud Yuusuf oo kamid ah mulkiilayaasha meheradaasi cusub waxaanu faahfaahin ka bixiyay adeegyada ay meheradani qaban doonto. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتنا ديات بان مر لبعض ديكم هادنا قينا إن هادنا قلص وغيب قشين حفلدن أينو حديقة كجتشرينو مهردن عصب برعو مودرن بوتشري مهردن وحي هيسا وإن شاء الله تعالى بالشدة برعان وقصو كردينينا هلب نظيفة عافمات كيسة لهوبيي qiimihiisuna uu ka jaban yahay qiimihii hore magaalada looga iibsan jiray hilibka saddexda qodob insha Allah waan bulshadaanu ku soo kordhinaynaa meheradan waa meheradii koowaad ee 5 meheradood ee inta sanadkan lagu jiro laga furi doono magaalada Burco hadii Ilaahay yiraahdo oo ay furi doonto shirkadan Burco Modern Butcheries fikradan waxay ka timi aniga saldhigaygu waxa weeyaan xanaanada xoolaha marka horeba dhakhtar xoolaad baan ahay hamiga qarankuna waxa weeyaan in bulshada reer Soomaaliland ay hesho hilib nadiif ah isla markaana caafimaadkiisa la hubiyay qiimihiisuna mar walba macquul yahay inagoo taa ka duulayna waxaan maanta bulshada Burco aan nasiib u siinaynaa inay helaan hilibka waqti kasta ay u baahdaan meheradanuna ay magaraysaa goor kasta insha Allah u furnaan doonto laga bilaabo 5 subaxnimo ilaa 9 habeenimo ay u furnaan doonto iyadoo mar walba hilib tayadiisa la hubiyay ka iibin doonto waa hilibka iyo kalluunka iyo digaaga iyo wax kasto la halmaalay oonta xoolaha oo dhan insha Allah taala sidoo kale waxa isla munaasabadaasi ka hadlay isduwaha wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga ee gobolka Togdheer waxaana uu mahad celiyay mulkiilayaasha meheradani oo uu ku tilmaamay dhalinyaro magaalada Burco wax weyn ku soo kordhisay sidaa uu sheegay Cabdideeq oo ah khabiir dhakhtar caafimaadka xoolaha ah oo takhasus dheeraad ah u leh caafimaadka xoolaha maantana daah furaya meheradan hilib tayaysan oo caafimaadkiisuna fiican yahay nasiib wanaag Cabdideeq marka hore professionkiisii oo ayuu aad iyo aad u muujiyay tusayna dadka in wax tayaysan oo qurux badan oo aan ur iyo wax dareen toona lahayn oo dadka caafimaadkoodii kor u qaadaya in uu sameeyo bulshadana uu u horseeday waxaan hore uga jirin halkan oo maanta la talaabsanayno haddaynu reer Burco nahay meelihii kale adduunweynihii kale dadka imanka samarka inoo imanayo kale aad iyo aad bay farxad weyn uga muujinayaan marka ay meelaha meheradaha la isku kaftamayo war kale la isugu yimaado. ugu dambeyn waxa munaasabadaasi soo xiray xogayaha dowladda hoose ee degmada Burco Cismaan Sheekh Cismaan Nuur waxaana hadaladiisii ka mid ahaa aad iyo aad baan runtii u soo dhaweynaynaa waxtar weyn buu soo kordhiyay hilib caafimaad qaba oo nadiif ah kalluunkii baa ku jira digaagii baa ku jira anwaacda hilibka binaadamku cuno oo dhan ninkan uu hayaa waxaanu leenahay dadweynaha reer Burco ninka Cabdideeq wuxuu soo kordhiyay wax weyn oo qiimo leh wixii wanaagsanna waa la iskaga daydaa waxaan leeyahay reer Burco ninka maanta waxtarka dhalinyarta uu noo soo kordhiyay hilibka freshka ah ee nadiifta ah aan meel duqsi lahayn ee siiga ku dhacayn aan cadceed lahayn aan wax allaaliyo wax caafimaadka wax yeelaya lahayn waxaanu leenahay lagaga daydo isagana Cabdideeqna waa u baarigaynaa dadkuna waxa weeye waa nin arrin keenay nin aqbal keena igana arrin buu keenay inana waynu aqbalnaa سعد أفجر تلفزيون عالمي جاه حرية برعو